dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan sida ay xafladdeennani ku bilaabantay waa laba munaasabadood oo isbarkan. waa munaasabaddii ufo dhalinyartii somalilan ee u damqatay danahooga, xasuuqii ardaydii loo geystay wakhtigaa mudaharaaday, iyo khudbaddii uu madaxweynaha qaranku ka jeediyey labada gole baarlamaan, ereyadii qiimaha lahaa ee uu ka yidhi ee uu kaga hadlay duulitaanka farmaajo uu ku hayo somalilan. labadaa qodob baynu ka hadlaynaa. horta dhallinyarteennan aan marley anigoo de ninkaa bidaarta weynlii aan ka mid ahay ufo in yar baa soo gaadhay. intan kalena dalka intii la xoreeyey dhasheenba. ufo waxay ku bilaabantay haddaan taariikhdooda dib ugu noqonno somalilan dawladdii la odhan jiray soomaaliya markii ay ka qadisay arrimihii bulshada wixii ay xaq iyo xuquuq u lahayd oo dhanba ay deedifaysay. hadday tahay caafimaad, waxbarasho, arrimaha bulshada oo dhan markii ay laadatay ayaa dhallinyartii waxbaratay ee reer waqooyiga ama reer somalilan waxay ka dhiidhiyeen arrimahaas, waxayna u damqadeen dadkoogii iyagoo si mutadawacnimo ugu shaqaynaya ayay abaabuleen inay dhakhtarrada, meelaha waxbarashada iyo meel wal oo dhan oo ummaddu ay ka dhinsanayd inay wax ka qabtaan. dawladdii siyaad barre umay taageeline jeelkay ku hubsatay, dil iyo madaxaa ku furto ayay ku wada xukumeen. ardaydii dhallinyarta ahayd ee wakhtigaa waddanka dee wax ka baranaysa ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ku jirtay, arrintaas ayaa cuntami weyday. niman dantoodii ka shaqaynaya oo arrimahoogii wada oo dalkoogii iyo dadkoogii u shaqaynaya oon cid xisbigan mucaaridku ahayn oon cid waxba u dhimayn markii la xasuuqay ayay ka dhiidhiyeen. dhiidhigaasina wuxuu keenay in dadkii la xasuuqo oo intaasoo arday ku dhintaan. macallimiintoodii baa la xidhay, nimankii caafimaadka joogay baa la xidhay, nimankii arrimaha bulshada ka shaqaynaya o dhan baa la xidhay. waxayna noqotay arrintaasi shamicii shiday xorriyaddan aan maanta ku noolaanayno. taas taa iyada u dhaafi maayo. ufo waa kaa. haddaynu u soo noqonno xafladdan khudbaddii madaxweynaha dawladdii soomaaliya ee aynu ka mid kahay inaynu lixdankii markaynu xornimada qaadanay calankeenna u geynay oo 1960 iyo maanta aynu 2020kii marayno hal yoom oo aynu faa'iido ka helay oo faa'iidadaas aynu soomaali weyn ku hella aynu nidhaano inamay soo marin. 2020kii inagoo marayna oo 30 sano xorriyaddeenni haysanna oo dalkeenni iyo dadkeenniiba dib u dhisannay oo aanay eegin xasuuqii iyo dhibaatadii ay dawladdii soomaaliya inoo geysatay ee weliba walaalnimo iyo darisnimo ku qadarinaynaa ayay maantana taagan yihiin. halkiinnii ku soo noqda. hormeynu ku noqon karnaataa waxaynu ka dagaalanay ee aynu u dhiidhinay ee aynu dadkeenni iyo dalkeenniiba ugu xoraynay ee aynu wax ku qabsannay maanta dib baynu ugu noqon karnaa. maxaa inagu waajiba? inaynu ka dagaalanno, af kaga dagaalanno, addi kaga dagaalanno, adduun kaga dagaalanno, dhiiggeenna saynu hore ugu hurnay aynu maantana u hurno. dee xorriyaddan intaa imiga ay arkaysa dhammaantood wixii loo soo mara wax yar baa garanaya. oday bacamulimiga wuxuu sheegaya halkan wajaalo gudaheega raggii dhallinyarda ay magaalada laga soo qabtay sanaba u shaqeeyaan intii lagu dilay maydkii la aasan kari waayey oo weliba roodhaafka lagu guro wakaa maydkii noconaya roodhida la leeyahay. kii shalay saa ku lahaa maanta miyuu ku maamuli karaa? markuu hargaysanayaa waan imanayaa waa goboliga midoon tegayan booqanayo uu taagan yahay. maynu yeeli karnaa? waynu ka dhiidhinay, waynu ka dagaalamaynaa. waad ku masantii reer wajaalo sida